Bismillahirrahmanirrahiim waxaana wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xillidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Trump ayaa maanta yiri waxaan si dhaqso leh u wajihi doonaa Cuba kadib Iran. Cuba waa inay is dhiibtaa marka ay aragto maraakiibteena waaweyn ee xambaara diyaaradaha dagaalka marka uu ka soo laabto dalweynaha Iran. dhinaca kale 16 saldhig oo ku yaala gudaha bariga dhexe ee Maraykanka uu leeyahay ayaa hadda awood u leh inay iska difaacaan haddii dagaalka dib ugu qarxo ayaa leeyahay dalweynaha Iran kadib markii Iran ay burburisay nidaamka raadarada iyo difaaca ee saldhigyadan yeelay inta uu socday dagaalka sida ay CNN sheegtay inay ku ogaatay baaritaan ay sameysay. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa amaanay geesinimo askarta kuuriyada waqooyi ee ka barbar dagaalamaysa ciidanka Ruushka ee naftooda isdhaafinaya ama isdilaya markasta oo ay ku dhawaadaan ciidanka Ukraine inay gacanta u galaan kana hortagaan in nolosha lagu qabto. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu waramayaa inay dalkeedu ka masaafurisay in ka badan 15,000 oo Pakistaaniyiin ah kuwaas oo haysta madhabta Shiicada iyadoo la sheegay in dadka la masaafuriyay in sidoo kale hantidooda lala wareegay oo ay faramarnaayeen dibna loogu celiyay Pakistan sida lagu sheegay barnaamij ka baxa telefishinka Faransiiska ee France 24. waxaa la sheegay in barnaamijka arintani ay qayb ka tahay saameynta Pakistan ay ka wajahayso dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Iran xilli hore oo la sheegay in Imaaraadka Carabta uu ka dalbaday Pakistan in dib ugu soo celiyo ku dhawaad $2 bilyan oo deyn bangiga dhexe ee Pakistan hore uu Imaaraadka Carabta ugu shubay si loo ilaaliyo kaydka lacagaha qalaataas oo ku qasabtay dalalka Sacuudiga iyo Qatar inay bixiyaan. dhinaca kale shirkadaha duulimaadyada qiimaha jaban ee Spirit Airlines oo Maraykanka laga leeyahay ayaa si dhameystiran adeegeeda ugu baxday markii ay wajahday xaalad dhaqaale iyo saameynta ka dhalanaysa qiimo kororka shidaalka sabab la xiriirta dagaalka Iran iyadoo 34 sano shirkadan ay shaqeynaysay hadda la iska xareeyay diyaaradaheeda isla markaana la joojiyay dhammaan duulimaadyadii u qorshaysnaa taas oo ka dhigan shirkadii ugu horeysay ee Maraykanka uu leeyahay oo qayb ahaan u burburto saameynta dagaalka uu Maraykanka ka bilaabay dalweynaha Iran.